kulantii habboon idil ahaantiin baa daawadayaal meel weliba waad ka joogtaan daafaha caalamka halkan waa raadsan t v qodobada wararkeena ugu duroona waxaa qayb ka noqonaya cabdirashiid janan uu mar kale nairobi looga yeeray iyo kulamo xasaasi uu halkaasi kula qaadanayo saraakiil ka socota dowladda isutaga imaaraadka carabta iyo sidoo kale axmed maxamed islaam madoobe hogaamiyaha maamulka jubbaland iyo sidoo kale siciid cabdulaahi deni kulamada ayaa looga hadli doonaa qodobo muhiima oo ku saabsan guud ahaanba geedi socodka siyaasadda dalka iyo sidoo kale arrimaha la xiriira gobolka gedo oo ay isku haystaan dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka jubbaland waxaan idiin soo gudbin doonaa macluumaadkii ugu dambeeya ee kulamada ka soconaya gudaha magaalada nairobi waxbaa kale aad daawan doontaana waxaa ka mid noqonaya dowladda federaalka soomaaliya oo hobkadhigis ku samaynaysa saraakiishii hore uga tirsanayd dowladda soomaaliya islamarkaana hadda howlgabka taliyaal iyo saraakiil magac ku dhex leh ciidamada qarabka sida ayaa la magacaabay kuwaasi oo guud ahaanba hubka laga dhigayo islamarkaana laga soo qaadayo ciidamo beeleedka ilaaliya si looga fogaado xiisado siyaasadeed oo ka dhasha guud ahaanba muddo kororsi ay doonaysa xukuumadda inay samayso soo dhowada wadahadayta markaaga kugu horeysa ee aa soo booqato halkan subscribe noo saar noon laagare muuqaalkan waad ku mahadsan tahay soo booqashadaada aanu ku horumarno wararka la helayo waxa ay tilmaamayaan in cabdirashiid janan oo ah hogaamiyaha ciidamada jooga gobolkaasi gedo ee dowladdu ay u egmatay guud ahaanba la dagaalanka ciidamada axmed madoobe ee ku sugan halkaasi ayaa la tilmaamayaa inuu ku sugan yahay gudaha magaalada nairobi ee caasimada wadankaasi kenya tani ayaa timid ka gadaal dowladda federaalka soomaaliya oo warqad casuumaada u dirtay toddobaadkan gudihiisa cabdirashiid janan si uu magaalada muqdisho u soo gaaro waxaa la tilmaamayaa in cabdirashiid janan uu ka dhaga adeegay casuumaadda ay u fidasay dowladda waxaana sidoo kale ku wehelinaya saraakiisha ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ee markaasi wakiil uga ahaa gobolkaasi gedo waxaana durbaba magaalada muqdisho maalinimadii shalay ahayd yimid cabdulaahi shimbir oo ah gudoomiyaha gobolka gedo ee ay dowladdu magacowday waxaa la tilmaamayaa in dhaqdhaqaaqyadu ay xoogaysanayaan hadda xaaladu weji kale ayay yeelatay kadib cabdirashiid janan oo ka baqday in guud ahaanba dowladdu ay xabsiga dhigtay islamarkaana dhanka iyo kenya u goostay wararku waxa ay tilmaamayaan in magaalada nairobi ee caasimada wadankaasi kenya uu kula shirayo saraakiil ka socota jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya kuwaasi oo mucaarad ah waxaana sidoo kale goobta ku sugan madaxweynayaasha maamulada jubbaland iyo puntland saraakiil dowladda wadankaasi isutaga imaaraadka ka socda ayaana sidoo kale ku sugan wararku waxa ay tilmaamayaan in cabdirashiid janan laga gadayo suurtagalnimada guud ahaanba uu uga mid noqonayo qorshayaasha lagu dhisayo jubbaland islamarkaana waxaa la tilmaamayaa in maxamuud sayid aadan ay macquul tahay in lagu bedelo hase ahaatee maxamuud sayid aadan ma doonayo in axmed madoobe uu lumiyo waxaana uu doonayaa inuu u daayo taytalka dowladdu ay u magacowdo cabdirashiid janan ee ah taliyaha nabad sugidda jubbaland waxaana uu doonayaa inuu gobolkaasi gedo ku ilaashado waxaana wararku ay tilmaamayaan hadda in saraakiishu ay isku horfadhiyaan gudaha magaalada nairobi ee caasimada wadankaasi kenya waxaana la gorfaynayaa guud ahaanba xaaladaha siyaasadeed ee isku tafan ee dalka ka jira qadiyadda gobolka gedo ayaana ugu tunroon waxyaabaha sida ugu muhiimsan looga hadlaya waxaa la tilmaamayaa dowladda federaalka soomaaliya inay damacsanayd qorshe halis ku ah guud ahaanba cabdirashiid janan iyo saraakiisha kale ee gobolkaasi geda ka iman lahayd waxaana la tilmaamayaa in dowladdu ay qorsheynaysay in xabsiga ay ku hubsato ka gadaalna wadahadal ay la furto axmed maxamed islaam madoobe waana tallaabo markaasi iyada u muuqanaysa mid markaasi ay culeys ka dareemi karta xukuumadda talada jooga hadda in uu ka fogaado guud ahaanba ninka lagu magacaabo cabdirashiid janan oo maalmihii ugu dambeeya ay si weyn u kala fogaayeen dowladda federaalka soomaaliya wararku waxa ay tilmaamayaan hadda xiisadu inay weji kala yeelatay ka gadaal wadahadalla ka furmay gudaha magaalada nairobi ee caasimada wadankaasi kenya saraakiishan waxaa ka mid a mucalimu iyo ninka lagu magacaabo xildhibaan sayare sidoo kale waxaa goobta ku sugan isaguna xildhibaan frimbi oo iyagu habeennimadii xalay ahayd halkaasi u hoyday waxaana la tilmaamayaa in kulamo hordhaca ay la qaadanayaan waxayse sidoo kale kala hadlayaan arrimo muhiima oo gobolka ku saabsan iyo kulamo horudhaca oo markaasi looga gogol xaarayo wadahadallo lakala dhexdhigayo axmed madoobe iyo sidoo kale cabdirashiid janan qorshuhuna waxa uu yahay in guud ahaanba gogasha la ballaariyo islamarkaana saraakiil muhiimihi ay kusoo biiraan
dhaqdhaqaaqyada maalmihii ugu dambeeyay siyaabooyin kala duwan ayaa la tilmaamayaa inay u xoogeysanayeen. Hadda waxa ay doonaysaa dowladda federaalka Soomaaliya in la hakiyo qorshe waliba oo markaasi guud ahaanba lagu doonayo in xal waara looga gaaro arrinta gobolka Gedo. Dowladda federaalka iyo Janan waxa ay ku kala tageen dhismaha maamulkii hore looga ballan qaaday in madax uu ka noqonayo ee laga dhisayo magaalada Garbaharre ee New Jubbaland looga magac daray oo dowladda federaalka Soomaaliya ay iska daysay isla markaana ay doonayso in guud ahaanba wada hadallo horudhicii ay la furto dhanka iyo Axmed Maxamed Islaam Madoobe hogaamiyaha maamulka Jubbaland. waxaana la tilmaamayaa in tallaabadaasi maalmihii ugu dambeeyay dhinacyadu ay si weyn uga shirayeen. Hadda magaalada Muqdisho ayaa looga yeeray Janan waxaana qorshe uu ahaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay xabsiga dhigto isla markaana saraakiisha kale ee gobolka ku wehlinaysa iyaguna xabsiga la wada dhigo. waxaana qorshaha ugu muhiimsan uu yahay in guud ahaanba la afjigo si markaasi loo yareeyo dhaqdhaqaaq waliba oo aanan ka turjumaynin qorshaha ay doonayso dowladda federaalka Soomaaliya in miiska wada hadalku ay la tagto Madoobe. waxa ay doonaysaa in guud ahaanba wada hadal kale uusan ku soo laaban isla markaana Cabdirashiid Jananna xabsi ay isaga tuurto. balse waxaa la tilmaamayaa hadda Janankii inuu arrinta fahmay isla markaana isaga uu u dhaqaaqay dhanka iyo Kenya. magaalada Nairobi ayay warar ku tilmaamayaan inuu ku sugan yahay. wada hadallo horudhac ayaa la tilmaamayaa in saraakiil uu Axmed Madoobe saaxiibo la yahay inuu la furay. waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba loo gogol xaarayo kulan weyn oo markaasi Madoobe, Dani iyo sidoo kale Janan ay yeelanayaan oo lagu gorfeynayo guud ahaanba siyaasad midaysan oo laga yeelanayo tallaabooyinka ay qaadayso xukuumadda talada joogta. waxaana la tilmaamayaa in maalmihii ugu dambeeyay siyaabooyin kala duwan ay dhinacyadu tallaabadaasi uga shaqaynayeen. dowladda federaalka Soomaaliyana waxaa la tilmaamayaa iyadu inay isku dayadeeda guud ahaanba ay ku fashilantay ka gadaal Cabdirashiid Janan oo isagu xerada uga baxay. waxaana la tilmaamayaa in xaaladu ay hadda culus tahay. dowladda waxa ay doonaysay kaliya in Cabdirashiid Janan ay iska xirto isla markaana Madoobe wada hadal ay la furto. balse Cabdirashiid Janan isagu arrintu wuu fahmay. Imaaraadka Carabta ayaana sidoo kale qayb ka ah qorshahaasi. adduun lacageed oo tirabeel ayaana la tilmaamayaa in la duldhigay isla markaana la siinayo si markaasi dhinaca iyo Jubbaland uga soo biro. adduunkaasi lacageed waxaa bixinaya Imaaraadka Carabta. waxaana la tilmaamayaa in maalmihii ugu dambeeyayna ay dhinacyadu ka shaqaynayeen in guud ahaanba arrinta gobolkaasi xal waara laga gaaray isla markaana guud ahaanba hadda ay noqotay mid lasoo afmeerayo. wararkeena ayaa daawanaysaan qabiga ugu dambeeya ayaanu markan ku sii siqaynaa aanu eegno mucaaradka Muqdisho. wararka la helayo waxa ay tilmaamayaan in dowladda federaalka Soomaaliya ay qaaday tallaabo culus oo aanan horay dalka uga dhicin, taasi oo ah in hubka dhigis lagu sameynayo saraakiishii dalkan ciidamada hore u soo maamushay. isla markaana waxaa la tilmaamayaa in dhammaantood hubka laga qaadayo. waxaa ka mid ah saraakiishaasi Jenaraal Yuusuf Siyaad Indhacade, Jenaraal Indha Qarshe iyo saraakiil tirabela kuwaasi oo guud ahaanba hub haysta oo ay dowladda federaalka Soomaaliya ka baqanaysa in mucaaradka dhankoodu ay maraan si markaasi ay u difaacaan dowladuna ay uga hor yimaadaan. si looga baaqsado tallaabadaasi dowladdu waxa ay samaysay in guud ahaanba la hakiyo dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan. si looga hortagano waxa ay doonaysaa dowladdu in guud ahaanba hubka dhigis lagu sameeyo. xubnahaasi Jenaraal Yuusuf Siyaad Indhacade ayaana ka mid ah xubnaha sida weyn dowladdu ay doonaysa in hubka dhigistu ay ku samayso, maadaama dowladdii tani ka horeysay uu ka soo horjeestay kaasoo uu sheegay in lacaga tirabela uu ka qaadanayo oo ilaa iyo $8,000 lacag gaaraysa ay uga soo dhacaysa xukuumaddii nabad iyo nolol uu hogaaminayay madaxweynihii talada ka tagay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaana la tilmaamayaa haddana ay ka baqanaysa dowladda talada joogta in guud ahaanba uu ku kala firayo isla markaana uu sameeyo wixii hore uga sameeyey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. tallaabadana waxay noqonaysaa mid culus. dhaqdhaqaaqyada xoogan ee dhinacyadu ay sameynayaan ayaa maalmihii ugu dambeeyay siyaabooyin kala duwan looga degayay. dowladdu waxa ay ka cabsanaysaa kaliya in saraakiishan ay maraan dhinaca mucaaradka isla markaana ay ku biiriyaan ciidamada mucaaradka ay wataan khibrad dagaal, taasi oo ay kala hortagi karaan xukuumadda talada joogta oo iyadoo doonaysa in mucaaradku ay maquuniso isla markaana ciidamo ay dul dhigto. waxaa la tilmaamayaa in tallaabadaasi si loo hakiyo guud ahaanba hubka dhigis lagu sameynayo saraakiishaasi. waxaana guud ahaanba hubka dhigis lagu sameynaya Jenaraal Yuusuf Siyaad Indhacade, Jenaraal Indha Qarshe iyo saraakiil badan oo markaasi ciidamada militariga Soomaaliya hore u soo hogaamisay. waxaana la tilmaamayaa in tallaabadan ay ka dhalan karto arrimo siyaasadeed oo culus isla markaana dagaal gelin karta dalka, maadaama ay yihiin xubno culus oo ay markaasi beelahooda ku tashtaan. waxaase dowladdu ay doonaysaa in si kadis ah ay ku dul istaagto isla markaana hubka ay uga dhigto
saraakiishaasi waana tallaabo culus oo u muuqanaysa guud ahaanba in meesha laga saaro dhaqdhaqaaq weliba waanan ka tarjumaynin guud ahaanba in saraakiishani ay hub ku sii haystaan gudaha magaalada caasimada ee muqdisho. dowladuna waxaa la tilmaamayaa inay doonaysa inay ka hortagto qorshe weliba waanan markaasi ka tarjumaynin tallaabada iyadu ay ku doonaysa inay amniga ku xaqiijiso islamarkaana ay uga hortagto dhaqdhaqaaqyada mucaaradka muddooyinkii ugu dambeeya ay wadeen. lama sooga halka ay saldhigan doonaan gudahaan. intaasi ayaan kusoo hormarayaa daawadayaal war waxaanu idinkaga eynay dhulka ay Soomaalidu degtay iyo caalamka intiisa kale. tan iyo kulan dambe nabadgelyo.